daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbood joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka sportiska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan TV-ga caalamiga ah Universal barnaamijkana waxa idin qaada dhigaya anigoo Cabduqaadir Boos ah ka bogasho wacan waa kulanka dhalinta maanta ha iskarin diigo kurbayuusan kugu ridin kalmadaheena qosolka kuleelqa sax u arag xidiga Faarax Cabduqaadir ayaa wali la fajacsan sida uu ugu fashilmay lanaabkiisa markii uu ka guuleystay laacibka Muday oo ku cusub masraxa guud ee kubadda cagta konton jirkan kooxosaadkiisa ka saaray afartan naadi ee ugu sareysa dalka si uu madaxda kale ula sheergareeyay kursiga ayaa u muuqda mid ay shaqeyn weeyday maalgelintiisa ila ku dhowdhow xidigan 7 bil ku dhashay ayaa bahdayada sportiska u xaqiijiyay in haraaga xisaabtiisa uu ku taageeri doono saaxiibkiisa nambarka 10aad ee Xasan Sheekh kaas oo aaminsan inuu ku soo bixi doono bilada kursi d'or kooxda Jubbaland ayaa ku dhow in suuqa xorta ah ay isaga diraan laacibka Cabdirashiid Xidig kaas oo ay ku eedeeyeen in kooxda uu u horbooday sidii ay ku fariisan lahayd booska saddexaad ee kala sareynta horyaalka dalka laacibka Xidig ayaa mari waayay shabaqa goolhaya Jawaari maadaama daafacyo wata maaliyad ka samaysan dollar isku dhigeen in la soo taabto birta goosha kabtanada Gaas iyo Axmed Madoobe ayaa u arka laacibka reer Kismaayo mid aan fahamsaneen qiimaha naadiga mar haddii uu ku fikiray inuu ka reebo Champions League Soomaaliya heshiisar u dhaca ayaa la fahamsan yahay inay kala saxiixdeen xidigaha Alta iyo Hodan Cabdiraxmaan kuwaas oo la arkay iyagoo isu soo dhawaanaya habeenkii koowaad ee sanadan Daily Mail ayaa qabtay in labadan laacib ee aan sinna u kala maarmin ay cuskadeen sharciga wajiyaal isxasuusta oo ay bahda sportiska ku soo kordhiyeen xidigaha Fiski iyo Hanuuniye ayaa haatan u muuqda kuwa iska iloway khilaafkooda ku bilowday kursiga kaydka qodobka heshiiska aan wali la isla meel marin ayaa ah in xidigta jooga dheer ee Hodan Cabdiraxmaan iska ilowda koobka qaramada Afrika kaas oo haddii ay u safarto ilowsiin kara heshiiskan Urdunka xidiga Ilka Casaqays ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda koowaad markii uu ka soo roonaaday dhaawac dhanka garabka ah kulan ka tirsan safar ciyaareedkiisa Afrika shakhsiyaad aan la magac dhabin ayaa xidigan ku weeraray gudaha garoonka iyagoo xitaa dhaawacyo u geystay ilaalada laacibkan cidii uu u martiyay xitaa weydiista Jim dhanka kale culimada Kampala ayaa aaminsan in qatarta showgan ay ka digeen una arkaan mashaqadan in loo sarifay faataxadooda barakeysan xidigta reer Finland Tufaax Darajo ayaa u muuqata haatan mid ka soo kabsanaysa dhaawac dhanka riyada ah markii koox marti ah u sheegeen in kabaha sportiska degdeg kala baxda garoomada fanka laacibada reer Hargeysa ayaa haatan Snapchat-keeda ka sameynaysa tababar dhinaca fanka ah taasoo ka dhigan in laacibadan martidii kaga timid dhanka samada ka sii huleelayaan 30 jirtan ayaana wax qiimo ah ugu fadhin fanka maadaama shacabkii ay showga u qaban lahayd la qarxiso tareemada iyo basaska markana xubinteennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen saakay naadiyada Yurub iyo Ameerika ayaa daneynaya laacibka Maxamed Dinos kaasoo bedeshay nambarka 4aad ee naadigiisa xirtayna nambarka 8aad oo ciyaaryahanka ka dhigaya mid la xuriyadiisa raacashada kooxda Ahlu Sunna ayaa haatan u muuqata mid soo baraarugtay markii shaxda maamul goboleedyada ay wax u qaybsadeen xilli ninba ninkuu ka digri xifdisan yahay u doorteen xildhibaan buuxa laacibka reer Dhoble Cabdirashiid Xidig ayaa raaligelin buuxda siiyay kooxdiisa xilli uu dhalin gaaray gool aysan ku qanacsaneyn naadigiisa oo xitaa geyn karay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka dalka xidigta Muna Umar Xasan ayaa ka soo muuqan doonta kooxda aqalka sare xilli laacibadii ay ka guuleysatay ku doodeyso in doorashada lagu dhawaaqay xilli salaad duur ay ku maqneed
xidiga cabdiraxmaan ibi ayaa loo doortay xidigii ugu liitay dhammaan kulamadii ismariwaaga markii uu xildhibaanada u ballan qaaday iPad xilli uu isaga weli isticmaalaya Nokia. kabtanka galmudug cabdikariin guuleed ayaa ku doodaya in xidigaha xildhibaanadiisu iloobeen sharciga b oo qoraya waad i doorateen mase iridi kartaan, taasoo ka dhigan in wiilka uu xor u sii yahay maareynta kooxdan horumarkeeda ka jecel xafiiltanka Puntland. kaamirooyinka qarsoon ayaa qabtay xidigaha aqalka hoose rag iyo dumar oo isweydiinaya yuusiradooda Facebook iyo Snapchat si ay u kulmaan meel ka baxsan garoonka. Universal TV ayaad weli naga daawanaysaan. intaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportska oo sabti walba ka daawataan TV-ga caalamiga Universal. barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo Cabduqaadir Boosa. halku dhigin waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa. tan inta barnaamij noocan ah ku kulmi doona waa Boosko idin le bye bye.